mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Ceerigaabo ayaa baar 12 duhurnimo ee maanta waxa ka kacay dab xoogan isla markaasina khasaare u geystay gurigii uu dabkaasi ka kacay balse dabkani ayaan geysan khasaare nafeed waxaana ugu horeynba dabkani u gurmaday isla markaasina baqtintiisa ka qayb qaatay in dadweynihii ka agdhawaa guriga uu dabku ka kacay waxa ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay isla markaasina warbaahinta faahfaahin ka siiyay sida wax u dhaceen bulshadii ka agdhaweed xaafadani dabku uu ka kacay waxaana ay dadamiska gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiinta gobolkaba ugu baaqeen inuu saacad walba dadamiska gobolkani Sanaag heegan ahaado wanaagsan inuu heegan ahaado inuu had iyo jeer dadka dhibaatadoodii wixii gubanayay iyo heegan ahaado la helo lambar gaarana lagala xiriiro niyo horta masiibo baa ku soo gurigan annagoo halka marayna ayaanu nimi gurigan aniga ninka xaad dabadeetana gurigu siliga qabsaday dabka dabadeetana waa soo galay deeniyo horta damdamis ma jiro magaalada xilligaas uu iimaanaya xilli shacabkii ay dhamaadeen waxaan u sheegayaa shacabka gobolka Sanaag iyo maamulkaba inuu ay heegan ku jiraan markastaba dabdamis waayo dad shacabku markastaba waa dabba iska qabsan kara oo dhibaatadu way iska fara badan tahay insha Allah hadda raxmo jiraan guriga intaas baan ka gaadhnay wax dhibaato oo kale ma jiraan waanu baqtinay alxamdulillah rabbil alamin wax kastaba naga gaadheen laakiin waxaan farayaa maamulka gobolka Sanaag heer gobol iyo heer degmada inay damdamisku markastaba ku jiro heegan aana iska seexan oo la badiyo oo markastaba ay ku jiraan si heegana si ay markastaba ay u aadaan yaan deel iska dhigan bismillaahir rahmaanir rahiim guriga kan oo si lama filaana dab u qabsaday waxa uu soo gurmaday shaqaalihii damdamiska iyo dadkii kale oo mas'uuliyiinta gobolka ahaa oo ay ka mid yihiin xogayaha gobolka gudoomiye ku xigeenka dadku aad bay isaga xil saareen dhibaato marka ay meel ka dhacdo waa ogtihiin oo kulli waa mushkilad soo korodhay laakiin aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa hay'adda damdamiska halkan ka dhacday damdamiska guriga gubtay waxa weeye horta wax deed shilaho khasaare nafeed ma jiraan sida uu xogayadu sheegay waa run waxa weeye dadku marka shilkii dhacay xogayaha warka la soo siiyay si degdeg ah uga howlgalay dawladda hoose si toos ah u timiyay damdamisku dadka waxa looga baahan yahay marka shil dhaco in si degdeg ah loo yimaado xarunta dawladda hoose loona soo wargeliyo damdamiska hawsha qabsanayaan alxamdulillah rabbil alamin waxa dhaco shil geesta kalena waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina soo gaadhay mas'uuliyiinta gobolka iyo mas'uuliyiinta degmada waxaana ugu horeyntiiba ay faahfaahin ka bixiyeen khasaaraha dabkani uu geystay iyo xarunta maamulka gobolka waa ka howlgalay dabkii oo inta badan la baqtiyay baanu nimi ilaa 3 qof haddana damdamsadii baa ku jira shicibkiina waa shaqaynayaan inta naloo sheegay ama nundhahayaga ku aragnay ilaa 3 qol baa shif beelay wax khasaare ah oo nafeeda ama caruur ama haween ha noqoto iyagu kamay dhicin waa mahad ilaahay shaqadiina wali waa sax alxamdulillah rabbil alamin waxa ma iskale ilaahay weyna waahidka hawshii damiyay inagu waxba ma qaban karo damiyay oo tacabkeena ay nagu khasaarayn ayaa mahad leh waxa kale oo mahad leh dadka soo gurmaday baanu mahad celinayna soo gurmaday ee ka qayb qaatay daminta gurigan gubanaya alxamdulillah rabbil alamin wax cid ah oo wax ku gaadheen ma jiraan gurigunba wax gaadheen dadkii damiyay iyo ciidanka damdamiska intaba waa mahad celinayna aad iyo aad baynu mahadsan yihiin waxaan leeyahay waan dadweynaha u gudbinayaa fariin ah marka wax dhacaan oo la ogaado inay arintaasi jirto in dadku ay soo sheegaan oo ay la soo hadlaan dawladda Adnan Abdul Rashid Ali telefishinka caalamiga Horyal TV gudaha magaalada Ceerigaabo